ninkan meesha jooga tacaddi buu ku haya shaqaalaha ka weyn waxaan kriminalkii ku hayaa waa shimaanadii maalin ugu direeyay balaarsiistan buu ku direeyay oo yiri meesha dhakhtarka weyn in badan ba maqnayd meeshan ma jirto wax cadaalad oo cisbitaalka taalo weyn ma jirto khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco taasoo sababtay in dacwadahoodu gaadho maxkamadaha gobolka Togdheer khilaafkan oo salka ku haya cadaalad darro ay qaar ka mid ah shaqaaluhu ka tirsanayaan maamulka sare ee cisbitaalka Burco ayaa waxa TV-ga area lagu warbixiyay maxamed axmed baashi oo hore uga mid ahaa maamulka cisbitaalka Burco haddana maamulaha dhakhtarka TB-da waxaanu sheegay in cisbitaalka guud ee magaalada Burco ay ka jirto cadaalad darro musuqmaasuq iyo waliba ku tagrifal awoodeed oo loo adeegsanayo shaqaalaha iyo dadka xanuunsanaya imika ilaa 5 sano waan marayay xaaladda cisbitaalka waan ku jiray maamulka cisbitaalka waliba geli ka dambe maamulka ayaan ahaa cisbitaalkii saan uga shaqeynayay ee geli ka dambe mas'uuliyadii aan isu saarayay oo cisbitaalka xaaladiisa aan u hayay ayaa bishii tobnaad sanadkan 2020 ayuunba warqad ayaa la soo hadlay waxay la soo hadlay madaxa shaqaalaha wuxuu inoo shaqadii waa laga joojiyay waxa dhacay baa ku shaqadii waan soo socdaay waa koowdii barkii weeye wuxuu yiri inoo agaasimaha iyo rasaaka wuxuu yiri maxamed shaqadii ka jooji waayeen buusha wax laga joojiyay shaqadii maayay riisan mid laga joojiyay isaga amarka bixiyay marka waxa shaqadii maanta soo gal waayay baan ku sagii ma la hadlay sagii ma la waxaan ku roolay agaasimo maxaa shaqadii ku dhacay afcad waan ka joojiyay shaqadii khaatir baa madax ka shay wax la waday kan maxaa shaqadii u joojiyay miyaad toogalnimo ku haysaa miyaad ku haysaa shaqo xumo miyaad ku haysaa maya waxa ka dacwooday jaamac iyo cabdirashiid saas uma ku bedel waa sax arrinkii uu dhamaaday khaatirtii baa gashay wuxuu yiri markaa TB-dan ku qoraya maamulka TB-da xagga ka shaqay waayahay baa yiri khaatirtii waayahay yiraahdeen markaa dhakhtarku waa muuse baxay markaa iyo khaatir kale u tagtay markaa waa lagu soo qoray warqadii baa la keenay TB-da la magacaabay bishii 19 marka la magacaabay wala wareegay cisbitaalkii waan hayay mas'uuliyad weyn baa la saaray cisbitaalka anoo shaqeeyay ayaan bishii 12 dhexdeeda intii waxaan ku roodhay meeshii waxa ka go'an xafiiska qalab shirkadiina sokortii iyo lacagtii baa adeegii baa go'an marka agaasimo marka hore ma tigin waxaan tigin kale jaamac wuxuu yiri waanu keenaynaa waan dhowr cashay meeriyeen waan ka qoostay dhakhaatiirtii shaqaaluhu bay war iska daan nimankan horaan uga qoosnay anaga bixina sokortii iyo lacagtii nina 200 buu bixiyay nina 400 buu bixiyay nina 200 buu bixiyay sokortii waa la keenay caanihiina beeshinka wax lagu dareena ana keenay sidii baan ku hayay dib baa hadana ugu noqdo waxaan ku war agaasimo warqad kale u qoray markaan warqad baan qoray aan wax ku dalbanay markii dib agaasimo qoray waxaan ku agaasimay talabkii labaad way midna bishii 12 sagaalka kala qoray midna 14 kala qoray ka baad markuu noqday jaamac intuu u yeeray war lacagtiini baa timi hay'adii koobi bixinayso waana $150 intii dama ayuu tii xabsiga waxaan ku lacagtii agaasimay jaamac keena agaasimo wuxuu joogay lacagtii way badanta jaamac wuxuu ma imaanba marka laba hadal bay ka dhigay waayaba ku iskirtii dib baan hadana ugu soo noqday lacagtii baa liidid agaasimo waxaan ku agaasimay cisbitaalkii xaaladiisu ma fiicna ciid baa talaalkan oo Suuriya jira cisbitaalka la sameeyay Suuriyadii waa bilaabiyo Suuriyadii beeshinkii waa galay waa afar Suuri beeshinkii baa galay way ku soo xaraadon saxarada buuxda imka nawda waxa sameeyay waxaan loo yimi maariyay wakaalada biyaha soo qof beeshin wada wuxuu wanayo meel aan ku farxashaysiya ma hayna yiraahdo waxaan ku leeyahay eego waxa meel ugu farxash ma jirto wuxuu yiri maxaa dhacay waxaan ku leeyahay qasabadii xamid jaan oo kaaso wuxuu yiri hadaba aniga nala shaqeynayay biyo gelinayay qasabadii wax loo baahan yahay aniga ii kaalayo marka warqad soo qortay bishii koowaad baan hadana wali waan wada arkiyo kama hadlin agaasimo cisbitaalka xaaladiisa nooca war cisbitaalkii xaaladiisa nooca war ila shaqeey cisbitaalkii waa sameeyo walba waxunta meel walba nadaafad ma laha meel ma laha wax walba ka wala dhig wali aqsiin way bishii 11aad aan isku qabsanay iyo 12aad iyo koowaad iyo labaad oo dhamaatay mushahar maarq lacagtii cisbitaalka aan ku maamulayay mas'uuliyadii aan ka ayana ma hayo cabdi suud ma doonay wuxuu doonayaa cid uu isagu maamusho oo ka dambaysa oo isagu doonay sidoo doonto inuu wato firfircoon buu isagu mid kale cisbitaalkii igala shaqeeyay shaqaalaha TB-da waa dhoolay 30 baa jooga mushaharkoodii ma hayaan bishii koowaad iyo labaad iyo saddexaad mushahar ma hayaan wala yimaadaan waa shaqaale daacada
hay-addii koobina way guurtay oo wax hay-addii gacanta ku haysay iyana markaan weydiiyo kula warheedhe saameed ku noolan karta waxay yidhahdeen annagu shan bilood 6 bilood markaan mushaarku naga maqnaado waan u tagnaa nama siiyaan waxay yidhahdeen nimahayna hay-ad baa ka qortayna dhaaf arrinkii intaan maxkamad gelin ayaan waxaan u diray muuse baaxe dhigsoorka la yaado iyo dhakhaatiir kale iyo gaboosiba u tegey waa la soo hadleen marka hore muuse la soo hadlay muuse waa ninkii haddii lacagta cisbitaalka u diideen mushaarkii soo siiya wuxuu ku hanjabay xilka ma ka qaadaya waayo xilka ka qaad miyaad wax sabab u haysaa ninkan aad ka qaaday ma uma hayo anaga iska sanifnay ninkan in nolol shaqeeyo ma doolino maxkamadii baan galay maalintii waxaan ku war arkaas saajita cisbitaalkaas mas'uul baan ka waa la shaqeyn waayay dhaqaalihii baa la diiday waa la haystaan meesha dhaqaale ma soo galo waa mushahar shaqaalu malaha aniga waxigo waa loo yarsan baan loo diray waa samankii buu soo jawaabay marka wuxuu ku soo jawaabay wuxuu yiri ninkani wasaaradda caafimaadka iyo cisbitaalka meel la kama soo galo waa ninkii 5 sano iyo dheeraad ba shaqeynayay wuxuu kaloo yiri shaqa joojin marka shaqa joojinta wuxuu ku soo qoray og isu duwa caafimaadka ninka bishii 12 shaqadii waan ka joojiyay bishii 11 keedina waan u magacaabay markii la weydiiyay maxaad maxkamadda uga joojisay ninka maxaad qaar wuxuu yiri ma badoonay ninka in la shaqeeyo ma doonayo tii isu duwaha ee digirtay isu duwaha waan haystaa waliba waan kaga soo shaqaale cisbitaalka oo jooga ayaan u shaqeyn jiray isu duwahan hore isku dhaceen waayo isu duwihii wuxuu doonayay inuu dhaqaalihi cisbitaalka uu maamulo oo ogaado waxaan ilo mas'uuliyad baa gobolka ka saaran oo ogaado isu duwihii way isqabsadeen wuxuu ku wajeegan anaga kula saxiixay jeegan waxa kaliya xoolahani maamaha adigu ha maamulan wuxuu ku yiri way isku dhaceen marka ninkan meesha jooga تعدي بكوها شغالة كوين waxaan kineelkii ku hayaa waa shimaanadii maalig ugu direeyay balaarsiistan ugu direeyay oo yiri meesha dhakhtarka weyn in badan ba maqnaay meeshan ma jirto wax cadaalad oo cisbitaalka taalo weyn ma jirto beeshinka waa lagu dulmiyaa anigu geeli damaan joogo wallahi ilaahay baa ugu beeshinka waxa la keenay dad masaakiin oo dhiig goostay oo wax walba goostay shaqaalaha waa u amraa oo farmasiga waa u amraa waxa dhacday in ay yiraahdeen wani kan friigu bixiyay aan islaafino meesha maadaama dadkan friiga wada qorayo islaafino sida awgeed ba dagaalkan colaad lagu bilaabatay saasaan lagu bedelay tiibida lagu bedelay markii damana sidii ma shaqada ku hayay tiibida marka waxa meeshan dusha laga qurxinayo ee la dadka wax ka midto ayaa ka tagdal shaqada gabagabadii wuxuu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka alay madaxweyne soo eeg gobolka Togdheer waliba caafimaadka gobolka soo eeg waxaan kala baaq u dirayaa oo kala agaasimaha wasiirka caafimaadka agaasimaha waxaan leeyahay maalin walba waa timaadaan oo soo gashaa wali isbitaalka TB-da meel yar buu ka daloolaayo wali meena tigin oo inama geeno halkan baan lagu hayaa isbitaalkan waa baaba waa zero waana isbitaalka dawladda dhanka kale agaasimaha cisbitaalka Burco aanu isku daynay inaanu arrimahani wax ka weydiino ayaanay noo suura gelin Mahad Cali Goodir Ariel TV Burco